dalxiiska goobtani ma aha mid ay indhahaagu ka daalayaan markaad ila daawato barnaamijkana waxaad la yaabi doontaa sida ilaahay goobtan u halqay halka waxaa isugu yimaada laba biyo oo kala jaada kala kalar ah kala dhadhana sidoo kale kala temperature ah marka biyahana qabow noqdaan kuwan waxay noqonayaan kuleel marka kuwan kuleel noqdaan waxay noqonayaan kuwan qabow waa meel aad u la yaab badan muuqaalo aad u cajab badan oo ku saabsan deegaanka Gurbiyaas waan filimkan kooban idin kula wadaagi doonaa halkan waa mid ka mid ah goobaha dalxiiska ay ku diyaarisay shirkadda Sanaag Transportation inaad ku dalxiistaan maalmaha ciidda iyo fasaxyada waa goob dalxiis oo ka qurux badan sidaad ka filayso markaad aragto quruxda iyo nimcada eebba ku manaystay goobtan oo ay u dheer tahay mucjisooyin rabbaani oo ka yaabin doona markaad goobtan soo booqato dhinaca biyaha ka imanaya waa biyihii caddaa waa biyo macaan sidoo kale waa biyo waqtigan diiran dhinacan kale waxa ka imanaya biyihii casa biyaha casi waa biyo qadhaadh oo waqti xaadirkan qabow 12 duhurnimo marka la gaaro biyahan diirimaadka ah waxay isu rogi doonaan qabow kuwan qabowgaahina waxay isku rogi doonaan diirimaad oo way iskala bedeli doonaan waana mid ka mid ah nimcooyinka uu ilaahay ku manaystay deegaankan Gurbiyaas marka waxa weeye waxaan leenahay dalxiisayaasha oo dhan meel kastay joogaanba gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada degmada Gurbiyaas haddaba haddii aad danaynayso inaad ka mid noqoto dalxiisayaasha shirkadda Sanaag Transportation dalxiisku u geynayso maalmaha ciidda iyo fasaxyada goobtan iyo goobaha kale ee dalxiiska hore u booking garayso tigidhka aad ku dalxiisayso xafiisyada shirkaddu ku leedahay gobolada dalka ama kala xiriir